السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلوا وصحبك شاهد بساني. داني يرادا بدن كود قبل يويل البوا. كوا وحي جعليهن إنس عاتيان، كوا وحي جعليهن إنس عيليان. قفك عاtada maanta wuxuu ku fikirayaa inuu iscayiliyo, qofka cayilana maanta wuxuu ku fikirayaa inuu iscaateeyo. Qofka maanta caatada ah waxa laga yaabaa inuu caynayo qofka cayilan oo ku caynayo qaabku u yaalo. Qofka cayilana waxa laga yaabaa maanta inuu caynayo qofka caatada ah oo ku caynayo qaabku u yaalo. Meeshaasina waxaad ka dhaxanaysaa dagaal inuu dhex jiro labada qof ee markaasi midka caatada ah iyo midka buuran. Laakiin mararka qaar isma weydiino maxaa sababa qofkan inuu caata noqdo oo cayili waayo ama maxaa sababa qofkan inuu cayilay oo macnaha laba dirbi noqdo. isma weydiino kaliya waxa aynu fiirinaa kaliya qofka qaabku u yaala kadibna waan xukunaa. laakiin marka aad fiirsid cayilkii caatada dadka ugu badan ee la dulmiyo waa dadka cayilan. haddaba waxaan ku xasuusinayaa maanta qofka caatada ah waa inaad ka fikirtaa waxa sababa caatadaani. qofka cayilana waa inaad ka fikirtaa waxa sababa cayilka. haddaba waxaan ku xasuusinayaa qofka cayilan waxa laga yaabaa metabolic disorder inuu ku dhacay. tamicneedu waxay tahay qaabka jirkiisa dheefshiidka cunnada in qalqal uu ku jiro. waxaana waxyaabahaas oo kala sababa cunnada waqtigeeda la cuni waayo, cunno tiro badan la cuno, cunno hal nooc kaliya laga cuno ayaa taas sababaysa. qofkani markii cunnada hal nooc ka cuno ama waqtiga looga baahnaa uu cuni waayo ama mararka qaar uu ahaado qof muddo badan uu gaajo ku joogo kadibna uu hal mar wax tiro badan cuno, taasi waxay sababaysaa qalqal inuu ku yimaado habka dheefshiidka cunnadiisa. qalqal markuu ku yimaado taa waxay caddan u tahay horta cunnada markaynu cunno cunnadaani waxa ay noo tahay energy. martaasi aan wax ku qabanno, wax ku aqrino, ku fikirno, waxyaabo badanna aan ku samayno. marka cunnada energy ahaan aad u qaada lahayd haddii uusan jirku u baahnayn oo markaasi energy u baahnayn jirku oo energy ku filan uu haysto. cunnadana markay carbohydrate u badan tahay isla markii waxa loo bedelayaa kala marka loo bedelana isla markii waxay noqonaysaa fat. waxaana dhacaysa marka in meelaha qaar qofku ka cayilo sida caloosha, gacmaha iyo boodiyaha. halkaasina caddayn waxa ay kugu filan tahay waa sababta keenta qofku isla markii inuu laba dirbi noqdo. markaan u soo laabto qofka caatada ah ee cunno walba hadduu cuno ay waxba ku kordhi waayaan, waxaa dhacaysa horta qofkani in waxa la yidhahda shilda quusaha ama thyroidka glandiska ah waxay ka qayb qaataan burburinta cunnada. selliska T3 iyo T4 la yiraahdo. qofku markii habka cunnada loo burburiyo ee marayso oo afka la geliyo cunnada, waxaa la soo sii deynayaa hormoono tiro badan, dhacaamo tiro badan lagu soo sii deynayo cunnadaasi si ay uga qayb qaataan cunnadaasi in la burburiyo wixii loo baahnaana jirka loo geliyo, wixii kalena qashin ahaan loo soo saaro. haddii qofka thyroidkani uu ka xanuunsan yahay, cunno walba uu cuno calooshay tegaysaa, wax yariisa in laga isticmaalo mooye inta kale musqushay sii aadaysa. qofkana waxaa dhacaysa markaasi in dhiig uu ku dooli waayo, waana sababta keenta qofku inuu cayili waayo. badanaana dadka qurbaha jooga, dadka marka xanuunkaas uu ku dhaco dawooyin baa loo soo qoraa. dawooyinkaasi waxa ay sababayaan in qofkani markuu dawadaas qaato cunnadan uu qaato kadibna jirkiisa sida caadiga u shaqeeyo. caawin haddii aad doonaysa maanta inaad iscaataysid ama inaad iscayilisid, coach ma baahnid, dhakhtar ma baahnid, qof markaasi cunooyinka ka hadlo ma baahnid, ee keliya waxa u baahan tahay inaad fahantid qaabka jirkaaga u shaqeeyo. sababta aan kuu dhahayo dhakhtar ma baahnid, qolyaha supplementiga xayisiin uma baahnid, waxa ay tahay dhammaan waxay ka saman yihiin ganacsi. dhakhtarka markaa u tagtay meeshaas wuxuu u fadhiyaa ganacsi. qofkan supplementiga ka iibinaya meeshaas wuxuu u fadhiyaa xayisiin. badana markaa fiirisid dadka ajnabiga ah ee bodybuilderska ah ee youtube-leyda ah ama website-yada leh ama barnaamijyadooda ay ku salaysan yihiin nutritionka, waxay xayisiinayaan wax markaasi product loo soo dhiibay. shirkadooyin waaweyn baa jira wax soo saaraya kadibna waxaa la rabaa in adi lagaa gado. horta adduunkan waxaa la isku dhaafay in maskaxda bini'aadanka la akhriyo. haddaad cunooyinka McDonald's fiirisid, KFC fiirisid, waxyaabahaas oo dhan haddaa aragtid cunnada waxaa ku badan sokorta, cusbada iyo saliidda. waa saddexda shay ee ugu macaan oo qofka bini'aadanka jecel yahay. McDonald'ka qofka lagama qaban karo, meelaha kafeega laga cabo qofka lagama qaban karo waayo sokorta ayaa ku badan. meelaha KFC-ga iyo cunooyinkani adiga street foodka oo kale qofka lagama qaban karo waayo saliidda iyo cusbada ayaa ku badan. maskaxdeennana waxyaabahaas oo kale way ka heshaa oo qofku wuu la qabsanayaa. markuu la qabsadana mar walba wuxuu u baahanayaa meesha inuu tago. dadka kale adduunka shirkadaha leh badanaa waxa ay akhriyaan maskaxda qofka bini'aadanka ah kadibna waxay ogaanayaan qofkani wuxuu u baahan yahay. supplementiska qof baa steroid qaadanaya, cirbad buu isku durayaa, taasoo macnaha dee testosteronkiisa kor u qaadaysa, murqo badan uu yeelanayo. markuu yeesho qofka youtube-ka ka daawanaysa isla markii waxaas leedahay qofkan six baagiisa iyo xabadkiisa oo kala raba inaan yeesho, wuxuu cuna ayaa cunaya. shalay wuxuu ku xayisiinaya supplementi, 2 isbuuc kadib ama isbuuc kadib supplement kale oo cusub asuu ku xayisiinaya buu soo ag fadhiisanaya, wuxuu ku leeyahay supplementigan baa qaata. adiga marka waa inaad fikirtaa isbuuc ma baashan ku bedeshay may. qofkan waxa laga yaabaa steroid inuu qaatay ama waxa laga yaabaa 7 sano 8 sano inuu gym ku soo jiray. mar walba waxa la rabaa dadkan intay maskaxdaada akhrin lahaayeen waa in adiga ka fikirtaa dhaqaalahaaga.
maanta Soomaali hadaynu nahnay nolosha dhexdhexaad baan ku jirnaa oo dad hanti leh ma nihin badanaa waxa aynu quudanno oo wax kooban haddii maanta proteinka laga qaado whey protein ha noqoto ama noocyada kala duwan $50 supplementiga kale kaniini hadduu noqonayo creatine hadduu noqonayo vitamina haday noqonayaan haddii adiga la isku dardaro 100 laga qaado bishii 150 kaliya laga qaado haddaad bodybuilder ahaan oo aadan wax ku tartamaynin halkaas cadeen waxa kugu filan inaad lacag gubaysid supplementigana u jeedid muddo dheer ma jiro yaabahani shirkadaha ay soo saaraan waxa aan 50 sano aan dhameen bay jiraan wixii ka horeeyay dadka maxay ku noolaayeen dadku 50 sano ka hor murqa ay lahaayeen dadku 50 sano ka hor maskaxdoodu way shaqaynaysay dadka 50 sano ka hor muuqaalkoodu wuu wanaagsanaa laakiin dadka muuqaalkoodu waxa bedela waxa ay tahay waa McDonald's iyo KFC iyo cunooyinkan sokorta iyo cusbada badan taas ayaa sababaysa qofku inuu calooshiisa weynaato in xeertu ay ku badato dadkaasi haddii ay McDonald's iyo qolyahan street foodka ay ku fikireen qolyahan kalena way ku fikirayaan qolyahan lacag ka rabaan qolyahan lacag ka rabaan qofka laga ganacsanayo waa adigu markaa inaad fikirto oo dib ugu soo laabataa cunadii dabiiciga ahayd cunadaasi dabiiciga ah haddii aad joogtaysid wax walba way ku hagaagayaan markaasina ma noqonayso qof qarash badan guba tada kale waxaan ku xasuusinayaa qofka muruqiisa waxay muuqanayaan markaasi uu jimka ka soo baxay uu soo bamgareeyay saacado kadib 4 saacadood ama saacado kadib waxa dhacaysa in dhiigii soo aruuray muruqii soo aruuro oo dhan ay fidsamaan kadibna qofku tabtiisa uu ku soo laabanaya badanaa sawiradaani lagu soo bandhigaya ee aad arkaysid qofkaani waa intuu jimka markaasi ku jiro muruqiisana ee markaasi bamgareysmeen laakiin haddaad mar walba baraha bulshada qof markaad ku aragtid isla marka aad isla barbardhigaysid halkaasi saameyn wuxuu ku yeelanaysaa dareenkaaga waxay noqonaysaa qof laablakac badan laablakacaasina wuxuu sababayaa in aad u xanuunsatid maskax ahaan wax walba baraha bulshada aad ku aragtid naftaada hala simin tartiib jadwal qoro jadwalkaasi ku dhaqan oo wadadaasi raac oo markaasi waxaad u raacdaa wax dantaada muhiim u ah wax walba aad aragtid isla marka naftaada aysan noqonin waxa aad la jeclaatid ana waad maqashay subaxii lindanaan hal cabo ama toon hal cuno ama sanjibil hal cuno horta ina fikirtaa inta sanjibil aadin sababta loo cunayo maxay tahay qof walba haduu ku yiraahdo toon cun ama subaxii liin cab caloosha ka go'aysa ama jirka xeertaada go'aysa ina fikirtaa horta xeertu waxyaabaas kuma go'ayaan wayna marka hore u laabataa anatomiga wayna u laabataa qaabka jirkeena u shaqeeyo physiology-ga waxaad ogaanaysaa marka in waxyaabahani muhiim ahayn ay muhiim tahay in jirkaaga horta qaabka u shaqeynaya aad fahantid jirkaaga qaabka u shaqeynaya waxa ku cadeey kara ama ku fahansiin karana waxa ay tahay inaad horta waxyaabaha aad cunaysa ka fiirsatid xadiga ay leeyihiin iyo waxyaabaha ay u badan yihiin haddaad maanta doonaysa inaad caadeysid subaxii aalsida markaa soo kacdo cunada ugu badan ee cuntid ha noqoto cunada ay ku badan tahay proteinka waayo subaxii jirkeena cunno tira badan buu u baahan yahay haddii aad carbohydrates ka basatid taamicneedu waxa ay tahay energy ka badan jirkaaga intuu u baahnaa baa galayso inta ka badan ay soo hartay aysan jirkaaga isticmaalin waxa loo bedelayaa xeer waana tan sababta in qofku uu cayilo badanaa subaxii markii carbohydrate badan aad cuntid mar walba aad carbohydrate badan cuntid waa inta badan isla markii gaajo ku sii qabanayso tusaale ahaan baastada oo kale saxan hadaad dishid saacad kadib waxa arkaysa iyadoo baahi ku hayso oo isla markii baa laga shaqaysiiyay kadibna inta u baahnaa jirkaaga la galiyay kadibna baahi baa ku sii qabanayso haddii aad maanta doonayso markii jirkaaga inay isbedelaan dhakhtar u baahnida waxa u baahan tahay afar wax ina xoog saartid number 1 waa hurdadaada waayo hurdadu waxa ay sahlaysaa hormoonno waxa jira ka qayb qaata gaajada oo qofka gaajo inuu dareemo ah iyo inuu dhergo haddii aad habeenkii oo dhan soo jeedid maalintiina soo jeedid macnaheedu waxay tahay inuu ku daaran yahay kaliya hormoonka gaajada mar walbana waxaad cunaysaa wax inta badan aad soo jeedid waa inta badan wax cunaysid inta badan wax cuntina waa inta badan jirkaaga dee cunno badan ay galaysa kadibna aad naaxaysid aba waa inaad biyaha ku dadaashaa badankan biyana ma cabno waayo waqti ma helno waxa laga yaabaa waxyaabo badan inaan ku mashquulsana jirkeena inta ugu badan biyo ayuu ku shaqeeyaa saas ay tahay biyaha waxa laga yaabaa inaynu cabinbo oo cabitaanada kaliya aan cabnaa cabitaanadaasna waxa ku badan sokorta ku badan wana tan sababaysa haddii aad cabitaanka basatid inaad si cayileysid saddexaad waxay tahay cunadu waa inaad waqti isleeg aad cuntaa subaxii haddaad soo kacdid cunno cun duhurka cunno cun habeenka cun saddexdaa waqti aad cuntay waqti walba waa inaad cuntaa aysan dhaafin waqtigeeda si uusan qalqal kaaga dhicin dheefshiidkaaga tan afraad waxay tahay jimta ku dhihimayo haddii uu lacag yahay laakiin waxaad samayn kartaa in maalintii 1 saac aad soo lugoy kartid looga baxsi 30 daqiiqo aad ordi kartid tamcineedu waxa ay tahay cunadii maalintii aad cuni lahayd oo dhan haddii aad cuntid wixii soo hara ama energy ahaan ka bata haddii aad soo socotid oo soo lugaysid waa lagu bayaa kadibna waxa noqonaysaa qof mar walba xadkiisa aan dhaafin laakiin hadaa inta cunti seexatid waa adoo jawaan wax ku guraya jawaanka marka dambe waa xadkiisa uu dhaafaya haddii aad videogan ka heshay asxaabtaada la wadaag wixii fikirkaaga comment nagula wadaag wasxaabka shayd bisan oo ku dhahaya inta aad lacagta gubi lahayd ama aad adigu maskaxdaada la aqri lahaa
marka hore waa inaad ganacsatada maskaxdooda akhrisaa dantaadana aad ka fikirtaa. Salaamu calaykum.